بسم الله waxaan rabaa inaan halkan ku dul istaagno daqiiqadaha soo socda. Faydal Curiosity marka aa phase 1 gudbisid oo dhammaystirtid waxay ku siin doonaan waxay samayn doonaan waxa loo yaqaano halkaas oo kale completed ay ku qoran tahay baa review ay kugu soo qorayaan. review reviewgaas wuxuu qaadan karaa ilaa 24 saacadood akoonkaaga eegayaan traderskaaga eegayaan si manual ah bay u hubinayaan. taasoo taan ku dhaliilayo waayo waxaan rabay in automatic ka dhigan qof markuu dhameeyo inay hore uga soo diraan laakiin iyagu waxay leeyihiin waqti baan qaadanaynaa si aan akoonka tradeskaaga mid mid u dul istaagno. taasna waa yara dhib badan tahay. marka marka ay ku dhameeyaan phase 1ka phase 2ga kuu soo dirayaan. phase 2ga intaanay kuu soo dirin waxay ku dhahayaan agreement pending war agreementiga horta saxiix. marka tan waxaa la rabay inay halkan geeyaan oo professionalka qaybta life accountiga geeyaan laakiin waxay dhahay si aa phase 2 u bilowdid oo u wadatid agreementigaaga adeer noo soo saxiix soo dir waxaa laga rabaa passporti ama id card ma hubo laakiin passport waa khasab waa laga rabaa. waxaa kaloo laga rabaa bank statementigaagii. waxaa kaloo laga rabaa bahalka waxa loo yaqaano KYC verificationka oo saxiixan. marka verificationka isdul taagaya inta aanan ku gurin xogtan buuxin. ardaygan waa arday gudbay marka maadaama aan rabay inaan mar walba review idin sameeyo way ii fududaatay inaan dhaho ardayga xogtaada ila wadaag si aan dadka uga faa'iideeyo adigana aan kuula hagaajiyo. marka si aan qof dambe ii dhihin war wax ila hagaaji waxaan rabaa inaan intan yar aan isdul taagno. okay marka halku dhufto agreement pending markaan dhaho akoonka waa 10,000 waa normal waa waka. okay waxaan rabaa pdf kan inaynu isla eegno agreementigan you are not authorized. okay pdf kan almost waan download gareeyay 1 second waana saxiixay agreement. okay okay u fiirso pdf kaasaa lagu soo dhigayaa meesha inaa fahantidaa laga rabaa. qaybta labaad waxay dhaheen mataqaanaa akoonkaaga macroga xogta termiska of use waa inaa isha wada marisid waa ilaa iyo intee page 7 pages waay. akoonkan hadda aan hayo oo ardaygaasi leeyahay waa normal strategy. trading periodku waa 60 maalmood buu haystaa. maximum losska laga rabo waa 5% halkaa 10% inay ka dhigaan bay ahayd laakiin 5% bay u dayan waayo maximum losska akoonkaaga 5% hadduu gaadho keliya waa kaa xidhmaya so ayaduna waa arrin kale oo u baahan inuu qofka ka taxadaro. maximum daily losska isagana u fiirso. I hope in screenka share garaysan yahay. yes screenka oo dhan aan share garaysan iga xumaan. okay aan ku cesho halkaa trade period 60 maximum lossku waa 5% iska ilaali ha isdhihin maximum losskaaga waa 10% sida akoomada caadiga ah forex funding oo kale 12% meesha kaga fiicnaanayso waa halkaa. maximum daily losskuna waa isla 5% so 5% haddaa hal maalin khasaartid akoonkaaga waa gubanaya berri oo kale melihiis 5% kale. marka waxaa isku mid ah darodhoonkii maalintii iyo darodhoonkii guud targetka lagaa rabana waa 5%. marka intuba waa 5 qodobkaas saa isaga saxa waxaa laga yaabaa qodobka hore aan ku sheegnay in phase 2 uu ka duwan yahay inuu phase 2 la mid yahay phase 1 laakiin laba mid ah waxay kala duwan yihiin maximum losska bay kala duwan yihiin. stop loss ordersku waa not required. news event trading newska waa lagu trade garayn karaa allowed phase 2ga. minimum position duration xil inta u yar oo inuu position ku furnaado ay tahay waa kolay ruleskoodan maalin ku arkay waxay leeyihiin rule ah ugu yaraan waa inuu trade ku furnaadaa 10 second miye mar waxaa dhici karta trade intuu gacanta kaaga dhaco isla 3 second bixidid taas kale waxaa laga inay dhibi kaaga timaado. marka tradeku haddii uu gacanta kaaga dhacdo ama haddii aad furtidba ugu yaraan 1 minute iska daa 1 minute kadib xir. marka 1 minute waxba maaha meesha iskama dhaqaaqi doono. closing options closing options waxa weeye optionska ay tahay goorta ay xilaysid waa progress Friday close time marka end of trading period. tan I have no idea waxaan malaynaa inay tahay tani closing open positions xilliyada ay tahay inaa xidhid positionadaada waa Friday close time
marka maxay ka wadaan marka ma week endiga laguma trade gareyn karo miya? Okay, I don't know. Commissionkaaga iyadana waa tan oo waa 40% oo marka aad samaysid tusaale ahaan targetka aad gaadhay $500 40% ka mid ah baa leedahay oo bonus ah. marka intaasi waa waxyaalaha laga rabay guud. marka waxaan akhridid baan jeclahay meelaha rabo inaan idin dulmaro waxa weeye halkan oo kale ka mid ah this one verification phase-ka wuxuu dhamaystirmaa marka traderku uu gaaro 60 maalmood gudahood targetkii laga rabay isagoon wax xeer ajabin tusaale ahaan maximum loss maximum daily loss isagoon kaga dhicin. traderku marka uu dhammeeyo tradekiisa waa inuu dalbadaa review isagoo taabanaya close period. Close period waxa weeye hadda phase 1 oo kale markuu ardaygani dhameeyey phase 1kaagii lagula hadli maayo oo lagu dhimayo waa dhamaysay phase 2 doono waa inaad taabataa bottom close period ah oo ku yaala phase 1ka meesha matrixka agteeda ku yaala. marka close periodka waxaa ka taabanaysaa marka akoonkaaga dhamaysid 5% gaadhid ayaa taabanaysaa si akoonkaaga review loogu sameeyo. haddii traderku uu la kulmo dhammaan conditionskii laga rabay verificationka waxa weeye waxaa laga dhigi doonaa successful trader will be recommended for the class trader program qaybta u dambeysa loo gudbin doonaa. waxaana laga rabaa si loo aqbalo inuu qofku saxiixo KYC verification kana akhrinayno waaye freelance trader or okay agreement be signed between individual trader waxaa saxiixaya inta u dhaxaysa individual traderka qofka traderka aba saxiixanaya xogtiisa iyo company-ga u dhaxaysa. trader will receive diploma certificate waxaa loo soo dirayaa shahaadadii baa loo soo dirayaa markuu dhameeyo. phase 2ga waxyaalaha iyaduna details explanation waa lagu sii faahfaahinaya. okay, xeerka cajiibka aan ku arkay halkan uu ku jiraa training periodku wuxuu bilowdaa marka aad furtid traderkaaga u horeeya. tusaale maanta oo kale haddii ardaygan loo soo diro oo uu furo isla maantaba trader qaato isla maanta uu bilaabanaya 60 days ku haysta 60 maalmood ba 5% laga rabaa adoo 5% dhuminayn. okay, ruleka maximum lossku waxa weeye maximum losskii 5%-ga ahaa waxa weeye waa account stop loss akoonka stop losskiisu haddaa gaadhid uu kaa xirmaya. maximum loss is the difference between your highest record balance and your equity. waxa weeye balancegaaga meesha u sarreysa uu joogay iyo equity-gaaga inta u dhaxaysa waxaa la dhahaa maximum loss. tusaalaan haddii akoonka 10 kun lagu dhiibo aad trade furtid goldi oo kale laba ku qaadatid oo kula aado 30 bimaynaysa oo uu equity-gaagu taabto 9,400 9,500 uu kaa qarxaya akoonka waa sidaa waaye. marka dad baa waxay dhihi ku doodi doonaan hadhow ma xirin traderkayga wuu furnaa xataa hadduu furnaa who cares sodiga akoonka qarxiya yaa kuu oginu soo laabanay wax soo laabanaya ma jiraan. xataa equity-ga waa lagu xisaabinaya la soco. maximum daily lossku waxa iyagana reset gareeyay habeenkii waxay kusoo qoraan discordkooda kusoo qoraan maximum daily lossku waa reset gareyn xogaa qolyahan waa manual inta aan kaga soo horjeedo waa inta waayo waxaan rabay in wax kasta automatic ahaadaan maadaama ay company weyn yihiin lacago waaweyn ay bixiyaan. marka profit targetka laga rabana waxa weeye 5%-ga inaad gaadhid phase 2ga si aad markaa ugu gudubtid meesha ku xigta. marka waxaa lagu sharaxaya haddana explanation of next phases upcoming phase waa life-kii waa lagu sharxaya. life-ku waa isbedelaya wax kasta isbedelayaan day life waxay haystaa 30 cisho marka aad tahay normal waxaan ka hadlayo dhan waa normal strategy qofkii aggressive qaata ha akhriyo waraaqa. normalku 10 days ba haysataa 30 days-ka laga rabo ugu yaraan 10 maalmood oo ka mid ah 30 cisho waa inaad trade furtaa maalin walba. maximum losskaagu waa 10%. phase 2ga waa 5%. marka halkaa dhibtu ka jirto waa phase 2ga oo 5% oo qofku ay tahay in aad isu ilaaliyo. maximum daily losska life-ka markaa gaadhid waa 5% isaguna oo waa which is good. target wax aan lagaama rabo haddaa $100 kaliya samaysid oo aad dalbatid lacagtaada $100 aad samaysay iyo 200 oo bonuska ahaa lagu isugu kaa soo dayay 300 helsa. haddaa $500 samaysid 500 waxa weeye marka dee lagaa jaro 80% baad leedahay $500 80% markaa ka qaadatid waa $400 400 waxa lagu soo daray 200 oo bonuskii ah 600 aad helaysaa. ma helaysid waad shaqaysatay 600 oo lagu soo diray. traderku waxa weeye waa inuu saxiixaa Federal Trust Program Agreement waa inuu saxiixaa waa kana hadda ku taaganahay saxiix wax kale maaha sida forex fund oo kale maaha kaliya saxiixaaga ku dhufanaysa bas.
Okay, and company-ga Value will pay withdrawal waxa weeye withdrawalka commissionka waxaa lagu siinaya marka aad phase 2 dhamaysid, phase 3 na dhamaysid, lacagtaada u horeysa dalbanaysid. Okay. Phase waa kan this one waaye inta hadda idin sheegay waxa weeye markuu phase 2 qofku dhameeyo oo lacagtiisa la baxo phase 3 la baxo lacagtiisa la baxayo loo soo raacin doonaa waan refund ba iyadana ku jirta $100 oo bonus ah waa akoonka 10 kuna $100 oo bonus ah $100 ku furatay iyo waxa weeye waxa loo yaqaano lifeka lacagta ka samayso traderku wuxuu heli doonaa phase 3-ga 5 maalmood gudahood meesha kale aan ku haysto nimankanna waa inta 5 days waayo waxayna ku dhaheen maalin haddaa ku baastay waa lagu gudbinaya maalinta ku xigta haddaa ku baastay waa lagu gudbinaya 10 cisho dambena trader gara waa isku 12 cisho soo maha 12 days wax xisaabsanay marka waxay leeyihiin xoogaa sometimes macaamiisheeda badan haddii aanu kuusoo dheerayno waxaan kuusoo diraynaa hadda phase 1 oo kale maanta waxay dhaheen maraan waraaq u diray waxay dhaheen phase 1 qofku markuu dhameeyo ilaa 3 maalmood baa phase 2 usoo dirnaa haddana isla maalintii bay soo direen marka kanna waa saas oo kale sometimes waxay leeyihin queuega dheer oo taas ay muddo u qaadan laakiin adigu 4 cisho waa sugaysaa akoonkaaga maalinta horse hadduu soo gaaro okay laakiin 5 cisho kama badan karayo waa lifeka waxa weeye fadlan currency program trading period always starts on Monday badanaa isniintay diraan tusaale ahaan haddii live account aa gaadhid oo aad dhamaysid maalin jimca ah waxaa laga yaabaa isla isniintaba inaad ku tiragelayso kuusoo diraan akoonkaaga haddii ay kuu dhammaato maalin isniin aad phase 2 dhaaftid waa isniinta kale inaad sugtaa sida ay tahay qodobkan waa sida badanaa waxay bilaabaan isniinta badanaa not mar walba maaha badanaa waxaa laga yaabaa in adoo talaada dhame ina isla talaada heshid ama arbaca dhame isla arbaca heshid laakiin waa sida noo sheegaya targetka waxa weeye minimum target ma jiro oo waa laga saarayaa traderku waa inuu codsadaa account review plus commission payout via client area waa inuu qofku codsadaa account review markuu live-ka gaaro akoonkayga lacagteeda inaga soo saaro waa inuu dhaho commissionkana waa inuu isagu dalbadaa waa inuu taabtaa close period bottomka ah si markaa xogtiisa loo qaado haddii qofka traderkaasi uu buuxiyo xeerarkii laga rabay akoonka waxa weeye lacagtiisa waxaa loo soo diri doonaa ugu yaraan 5 maalmood gudahood soo maha account review 5 days buu qaadanaya sidii kii oo kale marka xogaa xamuda inay reviewgaasi waxaasi ay ugu yaraan 20 cisho isku tagay halkii la rabay inay wixba 10 cisho isku tagaan okay everybody okay traderka waxaa la siin doonaa lacagtii account after every ha akoonkiisa waxaa la siin doonaa waxaa loogu soo celin doonaa haddii aan wax violation samayn marka Federal Currency Trading Challenge policygan akhri policygan iska akhri waayo policyada inta u dhib badan aan arkay waxa weeye looma ogola eeg haddaan dul marno aan degdegaba iska dhaafo baartiiska waxa weeye labada qaybood uu ka dhexeeya heshiisku waa adiga iyo company-ga okay marka waxaa la rabaa in aad xataa xagga dambe ka arki doonaa macnaheedu waxa weeye cid kale oo kula trade garayn kartaa ma jirto tradingka waa kale waxa weeye waxay dhaheen tradingka waxaa muhiim ah inaad fahamtid programka aad eegaysid who can generate stable waxay dhaheen waxaa muhiim ah inaad fahamtid waxaanu eegaynaa dad xirfadan leh oo stable ah degan waxna la soo bixi karaya as such and here we agree adiguna waxaad u timi meeshan waa nagu waafaqday ma rabno qof ku trade garaynaya unreasonable risk trade khasaaro aan caddayn qofka bilaabilaanka oo kale way u xun tahay company-gani risky gambling and I mean gambling and kind of strategy sida khamaar oo kale inaad ka dhigatay buy sell waxaan oo kale bila stop loss and so on emotion waxaasaa la diiday laakiin haddaad trader balaan garaysan aad tahay company-gan waxa way ku hungoobi maysid trade activity-gaaga waa la monitor garaynaya waa la eegi doonaa in real time mid baa loo dulsaa qof baa qaban doona akoonkaaga wuu eegi doonaa company-ga ka socdo maaha waxa weeye automatic maaha sida my forex fund oo kale automatic ay u tahay haddaa 100 trade qaadatid iyo haddaa 600 trade qaadatid iyo haddii aad waxa weeye adu waxa laga rabaa targetka uun aadan gaarin losska iyo maximum losska laakiin this one waxay leeyihin traderskaaga eegana ma meesha waxaa ku keentay qub iyo qac waxaa ku keentay bila stop loss waxaa ku keentay iska gal trade-ka and so on waxaa laga yaabaa haddii waxyaalahaas ay dhacaan in ay kugu dhacdo waxa loo yaqaano forfeiture for unfees paid or profit in profitkaagiba lagu diido waxaan rajaynaynaa in xogtan aad si fiican u fahamtay oo aad iska ilaaliso waxyaalahan
waxaana dareemayaa waxaa rabtay samee inay tahay waxa dad badan dib u dhigay. Marka I hope in company-gan payout-kiisa aan tijaabino, ardaydu tijaabiso way tijaabiyeen oo ilaa 3 arday aan payout iminka u saaray. Xogtoodana waa idinla soo wadaagi doonaa. Arday badan phase 1 iyo dhaaftay waa jiraan sida kan oo kale oo igu wareerisay agreement-igi maxaa la sameynaya what's next and so on. insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa in company fiican uu inoo noqdo, waayo xeerarkiisu ma adka mana dhib badna. Okay, lama ogola EA waxyaalaha robotiska iyo waxyaalaha lama ogola. Lama ogola signals inaad qaadatid oo dad signals ka qaata. Tusaale haddii meel signals laga qaato ay jirto ay arkaan dhowr akoon oo hal thread wada qaatay, hal meel kaga wada baxay, hal TP, hal stop loss, waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan signal baa ku trade garaysaa, caddaynna ay kugu soo qaadaan. Marka signal oo kale lama ogola in lagu trade gareeyo. sidoo kale news release-ka waa lagu trade garayn karaa bay dheheen. News event is allowed in further trading challenge waa lagu trade garayn karaa, laakiin live-ka iska ilaali, waayo toos baan u weydiiyey su-aasha halkan kuma cadda. waxay dhaheen phase 1 iyo phase 2 news waa ku trade garayn kartaa laakiin live-ka maya. waxay dhaheen marka sidoo kale economic event-ga iska soo eeg yaala dashboard-ka yaga si aad macnaha news-yada oo kale aad isaga ilaalisid inay ku dhibaan oo kale. marka we know that Fidel Crest waa mahadsantihiin. waa kan responsible and consistency strategy. Istaraatiijiyadda responsible mas'uuliyadda iyo joogteynta inta ugu dhibta badan waa intaan. marka waxa weeye waxay leeyihiin trading-kaagu waa inuu noqdo mid responsible ah oo consistency ah dhammaan inta aad trading-kaaga ku jirtid. waa in istaraatiijiyadaadu aanay ka hor imaan. waa inay istaraatiijiyadaadu ay must work in long term and based on pure luck. Okay, it's not based on pure luck. waxa weeye inay istaraatiijiyadaadu shaqaynayso muddo dheeri ah. tusaale ahaan inaa 1% risk garaysid maalintii, in aa waxa weeye risk management la timaadid and so on, muddo dheerna aad ku shaqaysan karaysid aana ku xisaabsan waxa loo yaqaano nasiib. dad badanaa nasiib marmarka qaarkood ku baahsan, marka taasoo kale diidayaan. If the trader places unusual number of large numbers, haddii uu traderku dhigo tradedo aad u fara badan in the service akoonka within unreasonable short time of period, waxa weeye muddo kooban gudaheed waxa ku dhacaya waxa weeye in addition waxa okay short time of period or places unusual large or small order compared to previous traders, ama uu dhigo tradedo ka waaweyn ama ka yaryar tradadii hore, it will be considered harmful gamble behavior customer. Okay, xogta aan isla fahan waxay dhaheen haddii uu qofku qaato tradedo aad u fara badan muddo kooban. tusaale ahaan London Open oo kala tim waxaa qaadatay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 trade oo kala maraysa. waxay u xuntahay dadka hal position oo kale 7 jeer fura. tusaale ahaan haddaa lood hal isticmaalaysid, qof baa wuxuu laga yaabaa inuu furo 0.2 0.2 0.2 0.2 5 jeer ama 6 jeer ama 7 jeer. marka waxay ku leeyihiin waa muddo kooban, hal saac gudaheed oo kale intaasoo tare dhigtay. laguma haysto inaad maalintii 5 tare qaadatid iyo wax la mid ah. waxaa lagu haystaa tareedho qayr macquul ah inaad maalintii dhigtid oo faraha ka badan. marka qayr macquul anigu waxaan u aqaanaa 10 tare hadduu ka bato oo kale. hadduu iskaba soo yarayso 10kayga aan kuu sheegay 5 ka mid ah 5 trades ha dhaafin maybe maalintii. haddaa dhaaftidna 10 7 ha dhaafin ha gaarin. okay, haddii sidoo kale qofku uu life-ka kale markuu gaadho aan maanta ku galo lod hal, ama ardaygaas uu markuu life-ka gaaro uu lod hal ku galo oo uu sameeyo lacag ka soo qaad 70 bib uu socoto $700 soma, wuxuu rabaa minimum trend days-kii inuu dhameeyo 10kii cisho ah. okay, wuxuu sameeyey qofkaasi 0.0 buu ku furay. taana iyagani ma ogola, nimankani ma ogola. aad bay u dhib badan yihiin, aad bay u dhib badan yihiin. waayo forex funding oo kale marka aad profit target-ka aad rabtid gaadhid badanaa waxay sameeyaan 0.01 haddaa ku furto okay cidna kula hadli mayso. keliya waxaa la eegayaa automatic waaye kulaba hadli maayo. xataa lacagta keliya waxay usoo diraan si manual ah, inta kale oo dhan automatic. marka qof dadka xoogaa tradingkoodu uu gamblinka muxuu u badan yahay over tradingka over riskinka iska ciyaaraya bilaa bilaanka uu u xun yahay company-ga runta fiican. marka waxay rabaan iyagu tusaalahaan inaad maanta lod hal ku furtid trade qaadatay $700 buu kusii kasoo qaad 70 bib, berri oo kale waxaa khasaartay $100 oo kale, saa dambe waxaa faa'iiday $200 oo kale, saa kunba waxaa faa'iiday $50 oo kale, sida taal waxaa khasaartay 150 and so on. 10kii cisho waxay rabaan iyagu saa inaad u qaadatid lod isku wada mid amaha, laakiin lod macquul ah. tusaalahaan lod hal haddaa furtid lod 0.5 oo kale waa imaan kartaa, lod 2 waa tegi kartaa ka badan. laakiin
waxaa la diidayaa lood hal intaan furo maanta oo trader ku qaato berri 0.01 aan furo saa dambe 0.01 aan furo waxaasaa la diidaya. Okay, I hope inaa inta ila fahanteen. sidoo kale waxay dhaheen position holding for the dot defeat average trade duration. Okay, position holding trade-ka aa haysid time-ka aad trade-ka haysid must not deviate from average trade duration and unreasonable amount of okay amount of time. This one waxay dhaheen trade-da xilliga haysid iyo kala badan and that's okay. tusaale ahaan qodobkan wuxuu noqonayaa haddii tradingkaagu uu celcelis yahay 1 hour scalping oo kale haddaa tahay sida badan anugu ku trade gareeyo ana tradekayga u badan wuxuu furan yahay 1 hour sometimes 2 hours waa qaataa ayaga waxay diidayaan tradekaagu inuu furnaado eg ilayn qofkii intuu lood hal qaato oo $800 hal maalin ka sameeyo maalinta xigtana lood hal furaya lood hal markuu furo 1 minute kadib wuu xiraya marka waxay isu eegayaan tradekii hore imusuu furnaa 10 saacadood tradeka dambe imusuu furnaa 2 daqiiqo taas kale waa waali bay ku leeyihiin waxay rabaan waxay isu dhowdhow tusaalaan 1 hour oo kale hadduu tradeka kuu furnaa inuu tradeka kale kuu furan yahay zero waxa loo yaqaano 1 hour and half 2 hours 30 minutes wax isu dhowdhow bay rabaan waxay diidayaan wax aad u kala fog marka iyaduna qodobka aad isaga ilaali oo qofka ay kusoo dhici karto lood hal fur marka asaa u furtid baa xir maadaama ay dhaheen loodka isu dhowdhowee taana waqtiga durationka tarirka uu socday ayaa lagugu qabsan karayaa waa in aad isaga ilaalisid marka ayaduna waa qodobka noocaasa fadlan aad isaga ilaali traderskaagu ha isu dhadhawaadeen macquul ha noqdeen oo dad waxaa jira badanaa maalin dhan trade haya ama usbuuc dhan haya iyo hadhowna markaa traderkii usbuuc aad haysay dee lagaa yeeli maayo traderkii ku xiga waxaan hayay 1 minute waad hayn kartaa oo trade intaa furtid waa ka shakin kartaa waa xiri kartaa laakiin waxaa rabaa tradeadaadu inay isu dhadhawaadaan si qof consistency ah inaad tahay loo garto oo tusaalahaan haddii anigoo kale 1 hour gudaheed traderkayga wuu ku kala baxnaa hadduu ka bato 2 hours buu igu qaataa hadduu ka yaraado waxaa laga yaabaa 15 minutes inuu gaaro waa wax macquula marka intaas waa wax isu dhow dhow laakiin traderna wuxuu ii soconayaa 1 minute traderna wuxuu ii soconayaa 10 maalmood it is incredible nimankani ma yeelayaan marka fadlan inaa xeer iska fahantaan waa muhiim sababta aad rabo inaa u dul istaago waa intaa waayo qofkani hadha wuxuu ku leeyahay adigaa saxiixay waxaan aan kuu sheegayo so maxaa ii weydiinaysaa haddaadan iska akhrin waa ku dhibtoonaysaa marka okay lacagaha ku tiragarayn kartid waa kuwa brokerkaaga ku jira trade waxa weye dhammaan positions waa inay xirnaadaan marka periodka uu kuu dhammaado si lagugu eego haddii trade kuu furan yahay macnaha face 1 kama gudbi kartid face 2 kama gudbi kartid lifekaaga account lacag laguma saari karo waa inay wada xiran yihiin trade account management and rate of refusal companyga potentialkiisu waa inuu waxa weeye iska difaaco financial losses inuu kasoo kabto inuu damage iska ilaaliyo and so on marka waxay ku leeyihiin haddii companyga aad samaysay waxa loo yaqaano refuse to conclude the contract of haddii aad diidid tusaalahaan waad qaatay account baa qaatay laakiin xeerarkan aan ku qanci weyday waa diiday marka ayada taasoo kale waxay ku leeyihiin waa financial loss oo kale kugu imaan kara protection of capital oo kale aan rabnaa bay dheheen and so on termination of agreement due to concern okay deemada iyo reelka noo kala duwan yihiin bay dheheen oo deemada oo kale waxaa laga yaabaa inaan slippage lahayn inaanay wax badan oo dhib ah kugu qaban in waxa weeye stoploskaaga oo kale haddii la gaaro ay ku dhacdo tb-gaaga haddii la gaaro ay ku dhacdo laakiin uu ka duwan yahay waxa loo yaqaano realku oo sometimes slippage uu sameeyo sometimes tb-gi intuu ku dhaco siiba qaato sometimes xoogaa lay uu jiro delay ah uu jiro marka waxay ku leeyihin waxaasna oo wax suuqa u yaala wax annaga noo yaala maatan haddii slippage kale ku dhaco hadhow annaga ha noo qabsan waa kan demo accounts waa ka fiican yihiin bukal executionku waa kaga fiican yihiin kuwa realka ah demo accounts harno very little artificial slippagekood waa yaryahay due to no real liquidity demo accountsku iyo real accountsku and of one standard lot may be okay wixii one lot ka sareeya may be immediately or fully on may not be filled waxaa laga yaabaa in one lot wixii 10 lot oo kale marka hogashid uu suuqa xoogaa in yar iska ka istaajiyo astagniuma internetka haddana uu ku qaato
marka waa wax ma garan suuqu leeyahay bay ku leeyihiin. Real account is stop loss and take profit is filled and liquidity level set price. Real account-gu waxa weeye stop loss-kiisa take profit-kiisa waxay waa filled waa order-kaas waa buuxsamaya only at the level of closest available liquidity, not the level of set price. Price-kaagu meesha yaallo maaha, meesha liquidity ugu dhow. Tusaale marba slippage spirit-ka oo kale baa TB kaaga dhacaya, ama meelaa buy stop dhigatay waxaa dhici karta in ay kaaga dhacdo waxa loo yaqaano buy stopta meesha dhigatay uu suuq spiritka oo kale uu kaa furo, marka iyadana saas oo kale way dhici kartaa. Forbidden trade practice waxyaalaha kaa reeban inaad samaysid marka aad trade ku jirtid. During the demo trade is prohibited, marka aad demada ku jirtid waxaa reeban in aad samaysid maxay, marka waxa reeban marka demada lagu trade gareynayo adoo og iyo adoon ogeynba inaad isticmaashid istaraatiijiyad kaasoo kasoo error ku sameynaysa service-ka in display of price delay in their update, ama kadib dhiga dadba waxay isticmaalaan price delay oo waxyaalo way ku furaan softwares ah si candle ay waqtigiisa oo kale ka raajiyaan, marka way jirtaa oo kadib wuxuu samaynayaa candleku delay buu samaynayaa oo halkii uu candleka 1 hour oo kale hadduu yahay waxa laga 2 minutes inuu dib dhaco, so 2 minutes waxaa ka eegaysaa taleefankaaga ama computer kale 2 minutes halkaasuu aadaya ama 5 minutes halkaasuu aadaya, so waxyaalo delay ah baa jira. Weligii ma arkin, idea-na kama haysto, laakiin sida aan u fahmay delayga inuu sidaa yahay waaye. Perform trade using external or slow data feed, iyadana sidoo kale data feed kale oo aad ku sii xidid ama slow ah baa lagu diidaya, maaha internetka inuu slow yahay, waa data feed. Okay, alone in a concert including, marka waxa kale iyadana halka ku jirta waxa weeye in ay diidaan in akoonkaaga qof kale kugula tarir gareeyo. Tusaalaan dad baa waxay furtaan akoon, kadibna wuxuu samaynayaa akoonkaygaas wuxuu dhahayaa qof baan u dhiibanaya, qofka aad u dhiibatay IP address wax la qabanayo. Tusaalaan haddii akoon tareedadaada aad ku furtay IP address ah Muqdisho, oo IP addresska waxa uu transaction kasto aynu samayno ama meel kasto aynu joogno waxaan wuu la socdaa artificial intelligence-ga ama waxyaalahan loo yaqaano softwareska. So marka uu trade furtid waxaa la dhahayaa lodwan buu ka galay magaalada Muqdisho xaafadda hebel IP addresska noocaas, qof kale u dhibtay saaxiibka Hargeysa joog ama Boosaaso joog, maxaa tiri markaa wuxuu yidhi isla tireer laba waxaa laga furay IP addresska Boosaaso, waxay dhahayaan niyo ma adaa saacad ka horna Boosaaso joogay 30 daqiiqo kadibna ama saacad kadibna aad joogay Hargeysa, hal maalin kadibna joogay meesha loo yaqaano Muqdisho, maxaa nagu ciyaaraysa? So way soo saari karaan in akoonkan dhowr qof ku tarirgaraynayo, ayadana iska ilaali. I don't know inay baqdin gelinayaan dadka oo diidayaan in akoomada la isu baasiyo ama la isu shaqeeyo, iyo inay runtood tahay. We don't know that, laakiin ruleskooda ku jirta haddii kaa lagugu qabsado waxa dhahay indha caddayn adoo akoonkaaga qof kale u diray. Qodobka kale oo halkan ku jira isaguna waxa weeye intaa waaye, laakiin qodobadan oo dhan ee koo waxaa jira aanan dul marin laakiin aanu arkay wax in qusayn ama less probable ah. Marka waxaa kaloo laga rabaa inaad serviceska iyo agreementiga aad saytay u raacdid, sidoo kale inaad kuwan akhridid. waxaa loo yaqaano immediate and liability, deynna ma bixino bay dhaheen, sidoo kale waxa magdhow aan ma bixino. Tusaalahaan haddii slippage kugu yimaado oo kale oo suuqa kaa saaro akoonka kaa xumeeyo, we don't care bay leeyihin, magdhow kuma siinayno. Refund policy waxa weeye waa in aad gaadhaa client okay, si aad haddii akoon aad qaadatay oo rabtay in lagu celiyo lacagtaada, iyadana waa in aad samaysaa waxa loo yaqaano orderka kansasho 14 cisho gudahood, kadibna aad codsata lacagtaada oo lagu soo celinayaa. Agreementiga terms of agreement either party inaad kuwan oo kale iyagana iska akhrid isha marisid weeye, oo phase 3ga waxyaalaha laga rabo, phase 2ga waxa laga rabo. Hadda phase 3ga oo kale eegno life-ka ugu muhiimsan, wax kale dhib weyn male. Customerku waa successful haddii uu challenge-ga iyo verification ku baaso, waa phase 1 iyo phase 2 waxaa laga dhigi doonaa trader program recommended to preliminary trade operative waa inuu saxiixo KYC documentationka oo ah kana akhrinayno xagga dambe aan ku arki doonaa sida loo saxiixayo. Haddii traderka loo aqbalo programka first phase 3 trading period
haddii uu waxa weeye dhameeyo phase 3 trading periodka 10 cisho laga rabay waxaa la siin doonaa qofka lacagtiisa sign up commissionkiisa waa kan withdrawal sign up commission oo ah 40%kii. Commission account is based on verification. Commissionku wuxuu kula socdaa ama wuxuu ku base garaysan yahay verification phaseska. Tusaale phase 1kii waxaa samaysay commission aad ka helaysaa, phase 2 waxaa samaysay commission aad ka helaysaa and so on. Marka adigu waa $100 10,000 oo commission iyo boqolkii dollar ama intii aad ku furatay lacagtaasaa lagu soo celinaya iyo intii aad markaas waxa weeye shaqaysatay. Risk disclosure kan akhri. Risk disclosure kan waxa weeye kamariga meeshuu ku yaalo. Okay, change merchant requirement time cancel orders takes time or traders anytime specific actually. Okay, muhiim badan ma aha. Meesha aan rabo waa tan. Haddii aad rabtid in aad waxa weeye halkan oo kale waa saxiixaysaa, saxiixaagaa saaraysaa sida uu yahay eeg. Macnaheedu waxa weeye waxaan aan soo akhriyo oo dhan waa idinku raacay. Ardaygan waxaa la dhahaa emailkiisu waa kan. Marka ardaygan marka uu saxiixo xogtan way dhaqan gelaysaa, waa inuu ugu diro meeshii laga rabay inuu ku diro. Okay, marka agreementiga iyo waxyaalaha laga rabo intaas waxaan raacin doonaa waxa loo yaqaano inaan sii eegno qaabka loogu dirayo dhammaan ruleskan iyo waxyaalahan. Marka I hope ina akhriyaan warqadan oo kale. Haddii aadan haysan waad heli karaysaa oo ardada oo kale Discord-kan u dhigaynaa. Ciddi kale oo YouTube-ka nagala socotana fadlan waxaa ka doonataan shirkadda laftarkeeda ka doonto warqadan. Ha igu weerarin warqadda ii soo dir. Marka waxaan sameynaynaa hadda agreementigii iyo xogtii aan soo saxiixnay ayaan rabnaa inaan dirno. Hadda wuxuu leeyahay agreementiga soo dir si akoonkaaga active u noqdo. Agreementiga marka halkan kala degi kartaa, kadibna waxaa la tegaysaa PDF editor, kadibna edit garanaysaa. Facekii hore ku noqo haddaa rabtid buu ku yidhi. Okay, marka waxaan tegayaa meesha loo yaqaano my documents, kadibna waxaan dhahayaa start identify verification. Bokol kuu furi doonaa. Bokol ayuu furay. Wuxuu yidhi ma rabtaa inaa waxa weeye xogtaada ku wadid oo diiwaan gelisid? Yes baan dhahayaa. Passport Soomaaliya haystaa, passporti Soomaaliya waddankaaga dooro aad joogtid oo xogta aad ka dhiibsid passporti. Marka wuxuu ku yidhi passport noocan la rabaa, noocan lama rabo, kanna lama rabo. Eeg passportka labada baalba inay muuqdaan, baalka xogtaada iyo baalka horeeya. Halfkaa lama rabo, kan dheeg yaallo oo inta kala bannaan tahayna lama rabo. Okay baan dhahayaa. Upload documenti. Documentigii buu yidhi marka soo dir. Documentigaan ku dirayaa. Okay, daaqad kale buu ii furay marka ay doontikina arkaysaa, laakiin documentigaaga oo aad meel folder kusoo diyaarsatay baad ku diraysaa. Waxaan dhahayaa kaali passportka sawirkii ninkan dhalinyarta ah baan u dirayaa. Xogtu waa personal, kadib wuu eegayaa, xoogaa buu qaadanayaa, loading buu leeyahay. Okay, waxaan dhahayaa marka hadda wuxuu ii diray, wuxuu leeyahay face camera baa laga rabaa si baasaboorkaaga isugu ekaataan. Tan oo kale waxay caqabad ku tahay qofka qof kale u buuxinaya. Anu hadda ma wadi karayo sababta facekeyga ma rabo inaan saaro, sabab baasaboorkii facekeyga islahaaneen. Marka haddii kamerada baasaboorkaaga uu computerkaaga uu okay ku yahay, I'm ready baa dhahaysaa. Haddii kale mobileka igu wad baa dhahaysaa. Marka xogtan intaan aan dhaafinaya kadibna qaybta labaad baan rabnaa inaan u gudubno. Okay, selfidii kameradii wuu verify gareeyay. Linki buu ku siinayaa. Linkigaas ayaan u diray qofkii lahaa selfida, and then wuu raacay, wuu is sawiray, madaxiisu dhaqaajinaya, and then waa verified. Next baan dhahayaa si aan xigto u tago insha allahu tacaala. wuxuu leeyahay application datadaadii documentigii iyo selfidii baanu eegaynaa. Kadib intaas sax buu saarayaa. Haddaan waxba ka khaldan, haddii wax ka khaldan yihiinna wuu igu soo celin doonaa. Hadduu kugu soo cesho ogow in aad adigu khaldan tahay.
oo tusaale ahaan waxa lagaa rabo waa document, waa scanned document, lagaama rabo waxa loo yaqaano sawir lagaama rabo. baasaboorka inta sawir ka qaadi inaad u dirtid lama rabo, document baa la rabaa. Okay, good, wuu aqbalay. Labadiiba waa aqbalay, soo ma jeedid. Congratulation buu yidhi. Verificationkii iisoo qabo baasaboortigii iyo wejigii labadiiba waa aqbalay. Baasaboorka markii hore waa nagu diiday, laakiin markii dambe scan caadi ah baa la saaray oo afarta koone ah baa la rabaa scan ku fadhiya. Markii dambe waa yeelay. Hadda qaybtii labaad baan u gudbaynaa. Okay, hadda waxay rabaan marka aan tago my documents, markaan tago day proof of ID sax waaye, bank proof of ID back, ID-ga xagga hore xaggiisa dambe, passport page-kii, selfie-gii, proof address-kii. Hadda proof address wuxuu ku jiraa isla passport-igu ku jiraa, de meesha ku dhalatay, meesha joogtid iyo waxa waa proof of address. Marka waxaa hadhay keliya inaan u diro agreement-igii oo laakiin saxiixan. saxiixana qaabka good fatwatin hore uu soo sheegnay. Signed agreement. Okay, which one? Okay, waxaan dhahayaa sign agreement upload baan dhahayaa, kusoo rid, waa inuu ii diyaarsan yahay. Sign agreement waa kan oo kusoo tuuray iminka, waa inuu qaataa, waa kaa. Signed agreement waa reviewing, waa lasoo eegayaa. waxay dhaheen agreementiga waxaa la aqbalayaa JPEG, PNG iyo PDF. PDF buu ahaa kaanu diray anaad. marka isaga reviewgiisu dhawaysanaya. intana waa wada sax. ka keliya hadda harsan waa this one-na waxa weeye markay aqbalaan waxaa kusoo noqon doontaa dashboardkaaga, kadibna halkaa face2ga bendingka kaa saaran ayaa kuu furmi doonta, kadibna face3gii professional marka aad noqotid oo lifekaaga lagu siiyo, isagana horaad ka wadanaysa. That's all. I hope inaa intaa wax ka fahamteen. I hope inay aad idin caawisay. waxa weeye haddii ay ku anfacday fadlan like saar, subscribe na saar, si aad waxa weeye waxyaalo value leh oo waqti badan uu kaaga bixi lahaa ama akhris badan ay kaaga bixi lahayd aad u heshid. marka soo dhawaada, aad u mahadsantiin.